Dad maalin waliba xilliga afurka xirta wadooyin oo isku dhiga gaadiidka safarka ah si ay dadka musaafirka ah u afuriyaan, isla markaana aan ka ogolayn qof aan afurin in uu gudbo. Si aan u guda galno muuqaalkan, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan, sii share garayso saaxiibadan aad gaarsiiso. Mahadsanidin badan. Waddanka Suudaan, qaybo ka mid ah ayaa waxaa ka jirta caado dhaqameed wanaagsan oo ay leeyihiin dadka deegaanadaasi, taasi oo ah in galab waliba marka la gaaro xilliga maqribka ee afurka, in ay gaadiidka iyo dadka saaran ee safraya ay afuriyaan iyagoo ajar ka raadsanaya, isla markaana aan ka ogolaanaynin in qof halkaasi maraya isagoon afurin uu ayaga ka gudbo. Tuulada Al-Nuba iyo deegaanada ku dhow ee ku hareeraysan oo baaxaddoodu ay dhan tahay ilaa 160 kiiloomitir amaba 100 mayl. Waddanka Suudaan ayaa dadka degan deegaanadaasi waxa ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay guud ahaan dadka halkaasi degan ay sameeyaan in qof waliba amaba reer waliba iyo weliba si koox-kooxba ahba ay u sameeyaan afur si ay ugu afuriyaan dadka wadada tuuladaasi dhex marta iyo deegaanada ku dhowba ee musaafirka ah ee ka yimaada caasimadda Suudaan ee Khartoum, isla markaana ku sii jeeda gobollada waddankaasi ay afur u siiyaan, isla markaana aysan ka ogolayn in qof aan afurin uu gudbo, kuwaasi oo aysan ogeyn dadku tirada ay noqon karaan iyo cunada ku filnaan karta, balse deegaanadan 160 kiiloomitir ah ay dhammaantood dadku wadooyinka soo istaagaan xilliga afurka, isla markaana ay wadada dhinaceeda ku diyaariyaan afur si ay u siiyaan dadka musaafirka ah. Sidoo kale, waxay afurka ay diyaarinayaan ay ka dhigaan canjeero laga sameeyay cunnada diirka leh ee waddankaasi, suugo, cabitaan, cambe, biyo iyo waxyaabo kale, maadaama dadka deegaanadaasi ay yihiin dad beeraley ah, isla markaana Ilaahay ku manaystay beero. Cunnada waddaniga ah ee diirka lehna ay aad u isticmaalaan. Marka ay dadku dhammaantood galabkii xilli hore ay diyaariyaan afurka, ayaa waxa ay isugu keenaan masaajidda, goobaha waaweyn iyo laamiga dhinaciisa, waxa ayna dadka deegaanadaasi ay sameeyaan diyaarinta salliyaal ay dadku ku fadhiistaan, lagu tukado, laguna afuro. Intaasi oo shaqo ah marka la qabto, ayaa waxaa heegan la geliyaa kooxo rag ah oo intooda badan beerahooda ka soo taga iyo ciidahoodaba si ay u afuriyaan dadka musaafirka ah iyagoo aan ka ogolaanaynin qof aan afurin in uu gudbo, si ay ajar uga helaan ugana raadsadaan. Kooxaha ragga ah ee heeganka gala ayaa gaari waliba oo soo muuqda ku qayliya istaag, kadibna isku hor dhiga haddii uu istaagi waayo, waxayna kadib u leexiyaan halka uu afurku ku diyaarsan yahay, waxayna kooxaha qaar afur siiyaan dadkii musaafirka ahaa, kuwa kalena ay gaadiidka kale ee wadada maraya ay soo leexiyaan si dadkaas kalena ay u afuraan. Dadka deegaanadan waxa ay afuriyaan dhammaan rag iyo dumarka musaafirka ah ee safraya. Inta badan xilliyada Ramadaanka ah ayaana dadka musaafirka ah ay ku tashadaan afurka marka ay deegaanadan marayaan, waana dhaqan soo jireen ah oo aysan ka kaftamin dadka reer Suudaan, gaar ahaan dadka ku nool deegaanada ku dhow tuulada Al-Nuba iyo 160 kiiloomitir oo ah deegaanada ku hareeraysan deegaankan Al-Nuba iyo deegaanada kale ee ku dhow. Waana caado dhaqameed ay in muddo ah isticmaalayeen dadka deegaankani, waxaana aad ugu farxa inta badan, isla markaana soo booqda dad badan oo muslimiin ah iyo warbaahin si ay uga diyaariyaan warbixinno, maadaama dadkani ay leeyihiin dhaqamo cajiib ah oo ay jeclaysteen dadka deegaanadaasi, waddankaasi iyo dhammaan dadka muslimiinta ah, maadaama in badan dadkaasi arrintaasi lagu wanaajiyay.